doorta iska Soomaali beenno Soomaaliduna ta xeerar bilaada iyo dhaqameen leed marka guriga walaasha lama martiya la dhahay guriga walaalka lama martiya wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka su'aalaha kadiska ee wadooyinka channelka naga daawaneysaan waa xog waran media su'aalina ku weydiin diyaar ah ay weydiin dhimisba adigoo magacaaga igu bilaabaya ana magacayga Qaasim baa Qaasim Maxamed Saadallah Qaasim su'aasha ku weydiina waxay tahay guriga walaalka iyo kan walaasha kee waad si farxad ugu noolaan kartaa guriga walaasha iyo guriga walaalka kee si farxad aad ugu noolaan kartaa labadu waa ku noolaan kara waaye labadu walaalahay Soomahan walaashay iyo walaalkii labadu maxaba igamahan labada waxa leedahay si farxad baa ugu noolaan karaa labada walaalahay farxad baa ugu noolaan kara sababtoo labada waa walaalahay meel lama kala aadi karno su'aalina ku weydiin diyaar ah adigoo magacaaga igu bilaabaya magaca maxaa Maxamed Axmed maxamed su'aasha ku weydiinaya waxay tahay guriga walaashaada iyo guriga walaalkaada kee waad si farxad ugu noolaan kartaa guriga walaasha guriga walaasha maxaa guriga walaal oo ku diidagtay oo walaasha ay aad xurnimo ugu noolaan kartaa mis farxad sababtu maxay tahay guriga walaalkay iyo guriga walaasha walaalkay isma fahmayno waxa leedahay walaal isma fahmayna balse walaasha isfahmayna walaasha isfahmayna adigoo magacaaga igu bilaabaya aniga magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Ibrahim Xasan waa tahay Axmed oo su'aasha galabta ku weydiina waxay tahay waa guriga walaashaada iyo guriga walaalkaaga kee baad si farxad ugu noolaan kartaa wallahi it depends markaas waxay ku xiran tahay marxaladda markaas lagu soo guriga walaasha uu noqon karaa laakiin guriga walaalkan uu noqon karaa laakiin walaasha mareer leedahay gurigeeda ma ninkeeda la joogtaa ma guri gooni ayada guriga reer leheen kuma noolaan kartid sax walaashaada oo reer leh iyo walaalkaaga oo reer leh kee baad si farxad ugu noolaan kartaa wallahi markaas waxay ku haboontaa marxaladda markaas taagan ay ku haboontaa laakiin labadooda aan gurigooda inaan tago markaas hadii aan salaan u tagaynin waxaan jeclahay nafsadeeda inaan gooni u maareeyo oo jabi ahaanba labadooda baa u tagay salaan inaan ugu tago sida sumcadda iyo sharafta ay ku jirtaaba sidaas ah su'aalina ku weydiin diyaar ah tahay aad weyn diyaar ah adigoo magacaaga u bilaabaya magacayga waxa la yiraahdaa Mubaarak Xasan Calasow Mubaarak oo su'aasha ku weydiina waxay tahay waa guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee baad farxad ku dareemaysaa marka aad joogto Siirageen maxaa dhade guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee baad farxad ku dareemaysaa waa guriga walaashay ama guriga walaalkay labadaba guriga walaalka iyo guriga walaasha kee baad farxad ku dareemaysaa labadooda farxad kuma dareemi lahayn sababta maxay tahay labadooda waa farxad ku dareemay wallahi hadaa mid ku darsado waxa ka dooran lahay guriga walaalkay guriga wiilkayga ama cuniga aan dhalay inanka aan dhalay ka dooran lahay ina guriga walaashay iyo guriga sababta maxay tahay aad guriga walaalka iyo guriga walaashaad aad farxad aad ugu dareemaynin guriga wiilkaada aad ugu dareemaynin wallahi family waxa waaye markii aad la fadhiisato waa taariikh waaye taariikhdaasna marna waa fiican tahay marna waxa waaye waa xun tahay ma fahanti marka ma jeclaan lahayn ani ina guriga walaalkay ama guriga walaashay aan u doonto farxad waxa leedahay adiga weehaanba labadooda kuma faraxsanadaan ku noolaa ma ku faraxsanaale guriga inanka aan dhalay ama cuniga aan dhalan ka dooran lahay ama xaaskayga gurigeyga maxaa xaaskaaga oran gurigeeda waad ku noolaan lahayd balse hadda waxay taagan tahay walaasha iyo walaalkaaga waxa waaye waa ma dooran lahayn labadooda hay dhinac dhaafaan dhihi lahay waa taayada uma santahay soo dhaw adaa mudan su'aalina ku weydiin diyaar ah tahay diyaar baa maahay adigoo magacaaga igu bilaabay magacaygu waa Maxamuud Shimoy Maco maxamuud oo su'aasha ku weydiina waxay tahay waa guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee waad si farxad ugu noolaan kartaa guriga walaalkay guriga walaalka sabab ah guriga walaasha ugu noolaan karna guriga walaalka ugu noolaan kartaa because nin shisheeye qaba oo camal guriga walaalkayna macnaha waa guri aan ku kalsoonahay laakiin soo isma dhihi kara gabadhana way ku lalatay wiilkana wuu ku lashtay way kala tahay because wiilka waa macnaha dhigaygu leeyahay waxa ku adkaysanaysa guriga walaalkay uga ku noolaan walaalkay ku adkaysanaya walaasha inay ku maqloosaa laga yaabaa taayada uma santahay su'aalina ku weydiin diyaar ah insha Allah adigoo magacaaga ugu bilaabay waxa la yiraahdaa Harun Siraj Harun su'aasha ku weydiina waxay tahay waa guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee waa si farxad ugu noolaan kartaa waxa weyn mid walaashayda sabab aad kan walaalka aad ugu farxad ugu noolaanaysaa kan walaashaad farxad ugu noolaan kartaa waxa weeyaan guriga walaalkay waxa joogo naag kale oo aqaanin oo meel kale ka imaadey guriga walaashay waxa leedahay walaashaydu baa joogta
haa walaashay balse ninka kale walaashaada qaba ismaad garanaysaan ilaan guriga kuma noolaan kartaa guriga walaalkaada aad ugu soo carartay xaaskiisa inaad is aqoon soo maahan haa laakiin ani waxaa weeyaan khibrad ahaan waan ku soo noolaaday guriga walaashay iyo guriga walaalkayba laakiin waxaa weeyaan waxaan xorriyad u leeyahay inaan ku noolaado wax kasta aan ka heli karo waa walaashay laakiin haddaan wax u baxdo waxaa weeyaan guriga walaashay waan ka heli karaa cunto wax kasto laakiin guriga walaalkay waa inaan qof weydiiyo inaan codsado ma ogi ma heli kari hadda waxaad leedahay guriga walaashay baa si farxad ugu noolaan karaa waa tahay aad umaasan tahay su-aalina ku weydiin diyaar ah haa adigoo magacaaga ugu bilaabay xamdeeqa mandex dynasty maxamed deeqo su-aashaa ku weydiinaa waxay tahay guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee waa si farxad ugu noolaan kartaa maya labadaba ku noolaan karaan labada waxaa leedahay si farxad waa ugu noolaan karaa su-aalina ku weydiin diyaar ah tahay haa diyaar ah soo dhawo adigoo kaamirada fiirinaya magacaaga maxay tiri maxamed maxamed oo su-aashaan ku weydiinaa waxay tahay guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee baad si farxad ugu noolaan kartaa ka walaashay sababtaad ku dooratay maxay tahay kan walaalkaa ugu tagto kan walaasha farxadda aad ugu noolaan sababtoo gabadh iyo wiil isku mid maaha gabadha ka naxariis badan hadda waxaan leedahay guriga walaashay unbaa ku noolaan karaa iyadunbaa naxariis badan soo laysma dhihi kara xitaa walaalaha qaar way naxariis badan dee kolley way jiraan laakiin ani ahaan walaashii baan ka jeclaa is leedahay abaayon baa naxariis badan su-aalina ku weydiin diyaar ah diyaar haa adigoo magacaaga igu bilaabaya cabdinaasir maxamed warsame shakalo ku weydiinaa waxay tahay waa guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee waad si farxad ugu noolaan kartaa wallaahi walaalkay iyo walaashay waa midagteydii iyo bidixaydii waa walaalahay laakiin waxay ku xiran tahay shakhsiyaddooda hadba kii aan ku noolaan karo waxay ku xiran tahay isaga shakhsiyaddiisa kee waa qofkaas inala wadaag aad ku noolaan kartaa lacalla haddii ay tahay walaasha guriga lagu noolaan karaa guriga walaalkay baan ku noolaan lahaa guriga walaalkaaga sababtaad guriga walaasha aad uga soo tagtood guriga walaalkaad ugu noolaanaysa maxay tahay waxaan ugu noolaan lahaa dadku waa ab iyo isri baa la dhahaa marka gurigaan nin kalaa iska leh aniga wax kan leeyahay xidid baan nahay oo kuma noolaan kara laakiin gurigaan waa guriga walaalkay anaa iska leh su-aalina ku weydiin diyaar ah waa diyaar adigoo magacaaga igu bilaabay cawaale cabdi xasan baa leeyahay cawaale su-aashaa ku weydiinaa waxay tahay waa guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee waad si farxad ugu noolaan kartaa duruufana kugu qoto meel guba noolaadaba guriga walaasha iyo guriga walaalka waa laga leexdaa gebi ahaanba labadooda waa laga leexday martida haddaad badayso marti badan iyo maxaa la yidhi iyo bugto badanba waa la isku nacaa aad iyo aad balse ka waran haddaad lama ka maarmaan ay tahay ood u baahan tahay oo meelaad kala walaasha gurigeeda waa ceebba lama aadaba Guriga siidiga waa dhex fadhiya soolis ma dhihi kara xitaa guriga walaalkaa dumaashin baa dhex fadhida dumaasha dhex fadhida dooban kuu sheegayaaba intaad ka maarmi karto waa laga wareegaa dhaqanka soomaalida balse hadda waxaa leedahay hadday lama ka maarmaan xitaa ay noqoto waxaan ku noolaan karaa guriga walaalkay hadday noqoto inaad wax kaa fursan waayaan oo baahi ku geyso wey haddii kale meelaha hoteelada yara seexo waa tahay u yara firaaqiya mar soo salaan kabacdi adigoo ku xiisa qaba ka tag haddana adigoo ku xiisa qaba u imow waxaa leedahay hadda guri joog aan u ahaado waa laygu nacaya waa qaristaag dama kasta albaabka qaw soo siiso war quba qabihi baa soo socdaa lagu leeyahay waa tahay aad maasantay soo adaa mudan su-aalina ku weydiin diyaar ah dabcan diyaar adigoo magacaaga igu bilaabaya magacay waa saciid nuur saciidoo su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay waa guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee waad si farxad ugu noolaan kartaa may labadaba may sababtaad ku diidaysa maxay tahay labadooda inaad ku noolaato labadaba kana saan aaminsanahay kana dumaashada waaye kana waa dumaasho labadaba meel ma fiicno in la joogo hataa dhaqanka soomaalida maaha duruufaba hadday madan meel kale waa xitaa ku noolaatay duruufta ku geysa walaalka sababtaa walaasha uga tagaysa maxay tahay waxay tahay kan waaba seediga waaba foolxume gabadhii walaasha ma garan karo ma dhihi karo meeshaan kama tilmaami karo hadda wax sheegi lahaa waa tahay sax su-aalina ku weydiin diyaar ah tahay diyaar ah adigoo magacaaga igu bilaabaya zakariya zakariya su-aashaa ku weydiin waxay tahay waa guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee waad si farxad ugu noolaan kartaa wallaahi guriga walaashii iyo guriga walaalkii waxaan si farxad ugu noolaan karaa guriga walaashii sabab aad kan walaalka aad ugu leexinaysaa kan walaasha aad ugu noolaanay sabab dee labadaba waa walaaley dee waa garabkayga midig iyo garabkayga bidix waaye balse hadda waxaa tiri guriga abaayon baan ku noolaan karaa sababta inala wadaag sababta dee maxaa waye dee rag iyo dumar isku mid maaha sooma waa la kala naxariis badan yihiin leedahay hadda dhankaasi oo abaayon baa naxariis badan iyada gurigeedan baan ku noolaan guriga abaayole waa tahay su-aalina ku weydiin diyaar ah diyaarana ayadiyad adigoo magacaaga igu bilaabaya xamza liyara magacay xamza su-aashaa ku weydiinaa waxay tahay guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada kee waad si farxad ugu noolaan kartaa wallaahi guriga walaalkay laga noolada layaan guriga sababtaad guriga walaasha aad ugu noolaan karna guriga walaalka ugu noolaan karta maxay tahay
walaalkay maana walaalkay islaalna ma sii hojeek shaqay laakiin guriga walaalay ya walaalaas mar walba kan walaalkay fayda su'aalina ku weydiin diyaar awtaa yes adigoo magacaaga ugu bilaabay anis maxamed cabdullaahi farmaajo anis su'aasha ku weydiinaya waxay tahay guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada keebaad si farxad ugu noolaan kartaa abo labadu dabcan labadu waa ku noolaan kartaa oo midnaba uma eexanaysid su'aalina ku weydiin diyaar awtaa diyaarana adigoo magacaaga ugu bilaabay magacaygu maxamed amiin maxamed amiin oo su'aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxay tahay waa guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada keebaad si farxad ugu noolaan kartaa ka walaalkay sababta ugu tagaysa maxay tahay kan walaashaad kan walaalkaad ku dooranayso anoo doorta iska Soomaaliyeeno Soomaaliduna ta xeerar bilaada iyo dhaqameen leeda marka guriga walaasha lama martiya la dhahay guriga walaalka lama martiya hor mahayba adama fahanti marka ka walaasha waxa ka weyn wanaagsan adoo mar agta soo gariyo mooyaane laakiin hurdeeyana dharka iskaga bixisid macquul ma su'aalina ku weydiin diyaar ha adigoo magacayga u bilaabay aniga cabtacali had fitaaxo afka dhan waa xiratan codkaaga ma soo gaaro adigoo codkaaga sare u qaaday aniga cabtacali waa tahay cabdi fitaaxo su'aasha ku weydiinaya waxay tahay guriga walaalkaaga iyo guriga walaashaada keebaad si farxad ugu noolaan kartaa labadaba waa isku mid waa walaalahay labadaba waxaa leedahay hadda si farxad ayaan ugu noolaan karaa waa walaalahay waa tahay